Neymar ayaa qasbi doona ka tigitaanka kooxda PSG xilli Barcelona ay u diyaar garoobayso dib u soo dhaweynta laacibkan. Kooxda Barca ayaa doonaysa in xiddigan reer Brazil uu qaado tilaabada koowaad uuna gadaal ka riixo qorshaha dib ugu soo noqoshada Camp Nou, halka sidoo kalena uu ku qasbanaan doono daaweynta taageerayaasha nacaybka u qaaday. Kooxda reer Catalan ayaa samaysay xeelad ay dib ugula soo seexanayso weeraryahanka reer Brazil. ciyaaryahankan ayaana u muuqda in uu diyaar u yahay ku dhawaaqidda in waqtigiisii kooxda Paris Saint-Germain uu soo idlaaday. Barcelona ayaa xiriiryo la samaysay wakiilada Neymar si ay u bilowdo abaabulka dib ugu soo noqoshadiisa garoonka Camp Nou. Neymar oo ku biiray PSG sanadii 2017 lacagihii ugu faraha badnaa ee abid ciyaaryahan lagu iibsado oo dhan 222 milyan oo euro oo u dhiganta 175 milyan oo pound ayaa ah mid aanan ku faraxsanayn iminka garoonka Parc des Princes, isagoona raadinaya sidii uu uga dhaqaaqi lahaa. inkastoo uu ku sugan yahay wax in yar ka badan hal sano dalka Faransa, isagoona kooxda kula guuleystay koobab iyo abaalmarino. Ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso.